بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waa salaamaya walaalaha daawanaya maanta waxaan idin wadaa barnaamij cusub barnaamijkan waa markii ugu horeysay aan soo gudbino walaalaha Soomaaliyeed barnaamijkan waxa uu la magac baxay sirta waxbarashada waxaanu shaki ku jirin in arday waliba uu ku hanwan yahay in uu waxbarashada ku guuleysto walibana in uu kaalinta koobaad u galo fasalkiisa barnaamijkeenan waxyaabaha aynu ka baran doono waxa kamid ah wadada cilmiga ee loo maro kaalinta koobaad qaabkaad ugu gali lahayd fasalkaaga ama klaaskaaga waxa aan ku kalsoonahay dariiqa saxda haddii aad raacdo inaad kaalinta koobaad gali doonto insha Allah waxyaabaha kale barnaamijkan aad ku soo bandhigi doono waxa kamid ah wadada ugu fudud ee wax loo xafido iyo sida cashirkii aad xafiday aanad mar dambe aanad u iloobi doonin ee uu maskaxdaada ugu jiri doono in badan waxyaabaha kale barnaamijkeenan aynu ka baran doono waxa kamid ah qaabka la iskugu diyaariyo imtixaanaadka iyo walibana qaabka loo daweeyo xaaladda caanka ee ka hortimaada arday waliba oo imtixaan galaya oo loo yaqaano exam stresska ama walwalka uu keeno imtixaanku waxa aan shaki ku jirin in ardayda qaarkood marka ay maqlaan kalimadda imtixaan uu qalbigooda ku soo dago walwal iyo walbahaar aad iyo aad u fara badan waxaynu barnaamijkeenan ku baran doonaa qaabka xaaladda looga hortago loona daaweyn karo waxyaabaha kale barnaamijkeenan aynu ku baran doono waxa kamid ah qaabka uu ardaygu u nidaamsan lahaa ama u habaysan lahaa waqtigiisa laga yaabaa in fara badan inaad barnaamijyo badan daawatay ama buugaag fara badan aad ka akhriday qaabka waqtiga loo nidaamiyo hase ahaatee markii aad istiri adigu aad waqtigaagii nidaamsatid ama aad jadwal qoratid aanad ku dhaqmin jadwalkii aad qoratay ama waxa dhici karta inuu qofku ku dhaqmay maalin ama laba maalimood kadibna uu ka caajisay maanta waxa la ogaaday waxyaabaha ardayga ka hor istaagi kara in jadwalkii uu qortay uu ku dhaqmi waayo barnaamijkeenan waxa aan kula wadaagi doonaa qaabka aad waqtigaaga u nidaamsan lahayd ardayahow kadibna aad ugu dhaqmi lahayd jadwalkii aad dejisatay waxyaabaha kale barnaamijkeenan aynu ka baran doono waxa kamid ah sida uu ardaygu u wajihi lahaa caqabadaha kala duwan ee ka hor imanaya inta uu waxbarashada ku jiro caqabadahaas oo ay kamid yihiin caajiska faraha badan hurdada badan waxa akhris la'aanta iyo walwalka iyo walbahaarka ma ogtahay ardayahow in bil walba jaamacadaha kala duwan ee dunida ku yaalay ay bixiyaan scholarship free ah oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ardayda ku nool daafaha dunida scholarshipyadaasi waxa ay iskugu jiraan takhasus walba oo la daraaseeyo barnaamijkeenan haddii eebba idmo bil walba waxaan idin kula wadaagi doonaa waxbarashada bilaashka ee ay jaamacaduhu bixinayaan jaamacadaha aad shahaadooyinka aad ka qaadan doonto waxaa kamid ah sida jaamacadda weyne Harvard jaamacadda Oxford iyo jaamacadaha kala duwan ee dunida ku yaal barnaamijkeenan waxa uu ka caawin doonaa wali ardayga aan dooran takhasuskiisa takhasusyada ugu wanaagsan ee maanta suuqa ka shaqeynaya iyo kuwa mustaqbalka ifaya leh barnaamijkan ma aha markii ugu horeysay ee aan tijaabinayo waxa aan ku tijaabiyay naftayda waan ku guuleystay kadibna waxa aan la wadaagay walaalahayga ardayda ay iga garab dhow qof walba barnaamijkan qaatayna biidnillaahi waa uu ku guuleystay maanta 7 sano kadib barnaamijkii marka aanu ka faa'iideysanay waxa aan go'aansaday inaan barnaamijkii ka dhigo public ayna ka wada faa'iideystaan walaalahayga ardayda Soomaaliyeed meel kasta oo adduunyada ka joogaan ka qayb qaado faafinta barnaamijkan adigoo commentiga hoose noogu reebaya fikirkaaga iyo ra'yigaaga iyo waliba mowduucyada aad jeclaan lahayd inaynu barnaamijkan ku soo qaadano haddii aad baydmo barnaamijkan waxa aad daawan doontaan toddobaadkii maalinka Khamiista saacadda Afrikada bari marka ay tahay 2 duhurnimo waxaan rajaynayaa inuu noqdo barnaamijkii ugu faa'iidada badnaa ee aad la kulanto sanadkan ka faa'iideysi wacan